Cumar Carte Qaalib waxa uu ku dhashay magaalada Hargeysa sanadkii 1930 waxa uuna waxbarashada hoose dhexe uu ku qaatay Hargeysa waxa uu ka baxay dugsi sare oo ku yaala magaalada Cadan ee dalka Yemen markii dambena waxa uu wax ku bartay jaamacadda Bristol ee dalka Ingiriiska markii uu dalka dib ugu soo laabtay 1950 waxa uu maamulo ka noqday dugsi ku yaala magaalooyinka Laascaanood, Hargeysa iyo Berbera. Ingiriiska ayuu ku noqday sanadkii 1956 isagoo oo takhasus ku sameeyay waxbarashada sare. waxa uu soo laabtay sanadkii 1958 markaas oo loo magacaabay maamulo ku xigeenka dugsigii dhexe ee Sheekh. markaa kadib waxa uu maamulo ka noqday dugsi hoy ahaa oo ku yaala magaalada Gabiley. waxa uu ka tirsanaa xisbi la oran jiray United Somali Congress markii ay gobolada waqooyi madaxbannaanadooda ka qaateen gumeystihii Ingiriiska 26 Juun 1960. waxa uuna ka mid ahaa raggii siyaasadda majaraha u hayay. markii kacaanku la wareegay talada dalka waxaa loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda 1969. waxa uu noqday madaxweynaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay 1972. sanadkii 1974 Cumar Carte waxa uu Soomaaliya ku daray ururka jaamacadda Carabta. waxa uu xilka wasiirka arrimaha dibadda hayay ilaa 1977. 7 Juun 1982 Allah u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Carte Qaalib iyo 16 siyaasi oo kale ayaa laga qaaday xilalkii ay ka hayeen dawladda iyo xisbigii hanti wadaaga kacaanka Soomaaliyeed. waxaana 7 Febraayo ee sanadkaasi maxkamad la soo taagay Cumar Carte iyo madaxweyne ku xigeenkii oo ahaa Ismaaciil Cali Obokor. waxaa lagu hayay xabsi guri uu ku jiray 2 sano. bishii Janaayo 1991 ayaa madaxweynihii talada ee Maxamed Siyaad Bare u magacaabay ra'iisul wasaare si uu u soo dhiso dawlad wada hadal la gasha mucaaradkii USC oo gudaha u soo galay magaalada Muqdisho. markii ay burburtay dawladdii dhexe ee dalka waxa uu ugu baaqay ciidamadu inay hubkooda ku wareejiyaan jabhadaha dagaalka kula jiray, waxaana uu u arkayay taasi xal nabad horseedi karta oo colaadaha lagu soo afjari karo. garabkii siyaasadda ee jabhadii USC ayaa Cali Mahdi Maxamed u doortay madaxweyne. waxa uuna isna ra'iisul wasaare u magacaabay Allah u naxariistay Cumar Carte Qaalib oo jagadaasi hayay ilaa bishii May 1993. Allah u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Carte Qaalib ayaa maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 18 bisha November waxa uu ku geeriyooday magaalada Hargeysa. waxaana ka tacsiyadeeyay madaxda qaranka oo ugu horeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. madaxweyne Farmaajo ayaa ku tilmaamay Cumar Carte Qaalib mid u soo hiiliyay dalka isla markaana si dhabar adeeg ugu